dalkan UK qasriga reer boqor ee Buckingham Palace ayaa shaaciyay faahfaahinta sida ay u dhici doonto ama u dhacaya aaska Amir Philips oo la qaban doono maalinta Sabtida ah ee berri. Aasku wuxuu ka dhici doonaa magaalada Windsor oo hadda uu ku sugan yahay wariyahayaga BBC-da Junayd Faarax. Junaydi soo dhawow, maxaa ugu dambeeyay qabanqaabada amiirka ee socota? Bidaan qasriga iga gadaalay ee Windsor Castle ayaa iminka waxaa ka socdo diyaar garowga munaasabadda ee lagu aasayo Amir Philip oo ay Brito maalinta Sabtida dhici doonto. Munaasabadan ayaa aad ugu duwanaa doonto kuwii hore sababtoo waxaa lagu jiraa saf markii corona marka sidaa daraadeed waxaa la soo yareeyay dadka ka soo qayb gali doono 3 qofood oo kaliya ayaa ka soo qayb gali doonta aaska. marka aasku ma ahan mid qaran, waxa uu ahaa doonaa aas oo macnaha boqortooyada ah. sidaa daraadeed waxay bilaaban doontaa xafladdu 3 galabnimo baarihii Brito. saaki mar aan albaabka hore tagay maxaan ku raaa Windsor Castle waxaa ku sugnaayeen dad oo baroordiiq u yimid oo keenayay ubax, inkastoo ay qasriga ay sheegeen in aysan dadku ku guubaabin inay keenaan ubax. sidaa daraadeed ay lacagta ay ku soo bixi lahaayeen ubaxa ay ku bedelaan maxaan ku yiraahdaa ku siiyaan hay'adaha qayriga ah ay sadaqa ahaan ku siiyaan. marka sidaa daraadeed maanta jawigu waa iska degan yahay, neecawdu aad bay u wanaagsan tahay, laakiin Brito ayaa la filayaa inay dhici doonto xafladda. waan gartay Junaydi, waad mahadsantay. laakiinse waynu ognahay COVID-kii baa jira, biyaynu ognahay madaxda waaweyn ee berri ka soo qayb galaya baa la leeyahay Junaydi marka la aasaya amiirka. Boris Johnson ayaa shalay waxa uu sheegay inuu aanu ka qayb gali doonin. sababta waxay tahay maadaama COVID-19 lagu jiro inay qoyska reer boqorna iyagana ay sidoo kale sameeyaan. marka ma ahaan doonto aas qaran, waxay ahaan doontaa aas ku saabsan qoyska oo aad u hooseeyo reer boqortooyada ah. marka 3 qofood oo kaliya ayaa ka soo qayb gali doonto oo meydka hadda waxa uu yaalaa qasriga. waxaa Brito subaxii laga soo qaadi doonaa isla qasriga dhexdiisa, waxaa la geey doonaa kiniisadda St George Chapel oo ku dhex taalo derbiga maxaan ku yiraahdaa Windsor gudihiisa. marka warbixintan ayaa idin sharaxaysa oo aan goor hore sameeyay. gaarigan ayaa qaadaya safarkiisii ugu dambeeyay. waa gaari Land Rover caadi ah ee uu amiirku lafahantiisii wax ka nashqadeeyay si loogu qaado naxash. waa naxashkiisii oo lagu geynayo halka lagu aasayo. waa aas aan laga badbadin doonin maadaama uu Amir Philip sidaa ku dardaarmay. caadiyan aaska reer boqor sida midii boqoradda hooyada ee 2002 ayaa lagu qaaday gaari ay jiidayaan fardo, taasi oo ay qoyska reer boqor daba socdeen. reer boqorna kuwa ciidanka soo maray waxay xirnaayeen dareeska ciidanka, balse aaska amiirka waxa uu ka duwanaan doonaa sidii hore ee soo jireenka ahayd. waxayna xirnaan doonaan dhar caadi ah. naxashka waxaa daba socon doona 4 uu dhalay oo 2 saf kala gelaya, safka koobaad iyo kan labaad, halka safka saddexaadna ay gelayaan Amir Harry iyo William oo dhaxda uu uga jiri doono Peter Phillips. haddaba maxaa keenay go'aanka inaanay boqortooyada xiran dhar gaar ah? waxay u muuqataa inay ugu danaynayaan Harry oo iminka aan xaq u lahayn inuu xirto dareeska ciidanka. guud ahaan qorshaha iyo qabanqaabada waxaa saxiixay boqoradda. marka ay soo gaaraan kiniisadda St George, boqoradda keligeed ayay meel gaara fadhiisan doontaa, waxaana ka qayb qaadan doona 30 qof oo afdabool xiran. sida aanu ka helayno qasriga ma sahlana in la xusho 30 qofood, balse waxaa ka mid noqon doona 3 ka mid ah garabka Amir Philip ee reer Jarmal. inkastoo aasku uu ka dhici doono gudaha qasriga, waxaa lagu lamaanin doonaa agaasin gaar ah. qayb ka mid ah ciidanka boqortooyada ayaa loo raray magaalada Windsor si ay u ridaan madaafiic baroor diiq ah. ciidamada lugta iyo kuwa kaydka oo ay ka mid yihiin ciidanka badda waxa uu xilkoodu noqon doonaa inay naxashka ka soo saaraan qasriga, dabadeedna geeyaan kiniisadda. wax walba si taxadar leh ayaa looga baaraan degay. inkastoo boqortooyadu ay dadku ku dhiirigelisay inaanay ubaxyo reebin, dad badan waxay go'aansadeen inay ubaxyo dhigaan qasriga. ubaxii la dhigay waxaa la isugu geeyey aqalka uu degan yahay Amir Charles iyo amiiradda Cornwall, halkaasi ay ku daawadeen fariimihii la socday ubaxa,
kuwaasoo ay dadku kaga tacsiyeynayeen geeridii ku timid amiir philip